kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ah kooxda haatan hogaaminaysa liiga dalka Ingiriiska ee loo yaqaano Premier League ayaa ku hogaaminaysa 13 dhibcood taasi oo ka horeysa kooxda kale ee Manchester City. Liverpool oo in badan baadi goobaysay inay ku guuleysato koobka Premier League ayaa saadaale la sameeyay oo dadka arrimaha ciyaaraha ka faalooda ay tilmaamayaan in haatan Liverpool ay ugu dhowdahay inay ku guuleysato koobkan Premier League taariikhda markii ugu horeysay. kooxda Liverpool waxay muddooyinkii ugu dambeysay ay waday dadaal ay doonaysay inay ku sii xeejisato dhibcaha ama ay ku sii dheeraysato hogaanka ay ku hayso Premier League. waxa kale oo xusid midan ilaa iyo bishii Abriil inaan kooxda Liverpool lagaga badinin Anfield oo ah garoonka kubadda cagta ee ay kooxdaasi gaarka u leedahay. warbixintan kooban ayaynu ku eegi doonaa xaaladda Liverpool ee xilligan Premier League ee daawasho wanaagsan. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ka dhisan horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League ayaa ku hogaaminaysa 14 dhibcood iyadoona ka horeysa kooxda dhigeeda ee Manchester City oo ku jirta kaalinta labaad. kooxda Liverpool waxa ay leedahay 61 dhibcood halka City-na ay leedahay 47 dhibcood. waliba waxaa jira ciyaar dheeraad ah oo kooxda Liverpool oo aanay wali ciyaarin taasi oo ka dhigan haddii ay badiso inay horyaalka ku hogaamin doonto 17 dhibcood. waqtigii ugu dambeeyay ee kooxda Liverpool ay ku guuleysato horyaalka dalka Ingiriiska ayaa ahayd sanadkii 1990kii. sanadkan 2020 ayaa si weyn loogu saadaalinayaa in Liverpool ay ku guuleysato horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League marka la eego qaab ciyaareedka iyo waliba sida ay isu difaaceen ciyaarihii hore ay soo yeesheen. waxaa muuqda in Liverpool ay haatan ku sii dhowdahay 38 ciyaarood oo xiriir inaan laga badanin tartanka horyaalka dalka Ingiriiska taasi oo ku dhow iskooradii ay hore u dhigeen kooxaha Chelsea iyo waliba Arsenal. inkastoo aanay wali gaarin balse waxa la eegayaa ciyaaraha soo socda ee toddobaadyada ay yeelan doonto in Liverpool la qabto iyo inay hore u sii socoto.